Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. All of you greeting from my heart. Dhammaantiin waan salaamayaa. Soo dhawaada. Biidhnillaahi tacaala waxaynu doonaynaa inaynu bilowno ama aynu isku dayno inaynu ka shaqeyno bal su'aalahan imtixaankii 2024 ku jiray imtixaankii Englishka. Su'aashoodu waxa weeyaan they saw dash animals in the back than they had expected. waa 2024 paper 1kii afartan eribin kala dooranaynaa ma waxa sax less mise waxa sax fewer mise waxa sax few mise waxa sax little talabaadina waxay noqonaysaa we must hurry up there is dash time left isna waa 2024 paper 1 afartan su'aalood baynu kala dooranaynaa afartan doorasho ama option waa little iyo a little iyo few iyo a few su'aasha saddexaadna waxa weeyaan I have dash knowledge aqoon ma few ba saxa mise a few ba saxa ma little ba saxa mise a little ba saxa iyaduna waa 2024 paper 2 ereyada option-kaynu kala dooranayno waa cutubka koowaad ee form 3-ga marka haddaynu cutubka koowaad dib iskula eegno unit 1 cutubka koowaad casharka grammarka ee ku jira form 3-ga magaciisa waxaa la yiraahdaa ama loo yaqaanaaba quantifiers ayaa la yiraahdaa quantifiers kuwii badan yihiin at the end of this unit or by the end of this unit every student should be able dhamaadka casharkan arday kasta wuxuu awoodi doonaa inuu aqoon fiican u yeesho quantifiers ku yihiin marka quantifiers ku badan yihiin waxaynu xagan ku qaadanaynaa afar erey oo kala ah ereyga koowaad waxa weeyaan a few ereyga labaadina waxa weeyaan few ereyga saddexaadina waxa weeyaan a little ereyga afraadina waxa weeyaan little afartan erey ayaa doorashada ama option-ka inoogu qoran saddexda su'aalood ee imtixaankii ku jiray isla markaana aynu doonayno inaynu ka shaqeyno haddaba by the end of this unit every student should be able arday kasta wuxuu awood yeelan doonaa afartan erey which are these words used for countable noun ereyadan kuweebaa loo isticmaalaa countable noun kuweebaa se loo isticmaalaa uncountable noun maxay ku kala duwan yihiin a few iyo few iyo maxay ku kala duwan yihiin a little iyo little haddaba aynu ka bilowna ee afartan erey waxaa la isku dhahdaa ama loo yaqaanaa adjective of quantity waxaa la dhahdaa adjective of quantity amounts ayay tilmaamayaan xaddi waxaana shardiya in afartan erey marka aad doonaysa inaad isticmaasho in la dhigo ama laga horreysiiyo before a noun waxaa la dhahdaa adjective-ku siduu u dhan yahayba dee magacaa laga horreysiiya iyagoo before a noun baa la dhigaa hadduu ereygu adjective yahay waa inaad magaca ka horreysiiso okay haddaba nounkii baynu isla eegaynaa nounka laba nooc baynu qaybinaynaa nounka waxaynu qaybinaynaa laba nooc labadaa nooc mid ka mida waxaa la yidhaahdaa countable noun waxaynu odhanaynaa countable noun ka kalena waxaynu odhanaynaa ama aynu bixinaynaa uncountable noun okay uncountable noun ayaynu bixinaynaa countable nounku waa magac la tirin karayo haddii magaca kow laba la odhan karo waxaynu leenahay waa countable noun haddii aan la tirin karayna waxaynu leenahay waa uncountable noun kan markaynu definition garanayna waxaan ku qeexaynaa is a noun waa magac that can be counted waxweeyaan can be counted wixii la tirin karayo ayaa loo yaqaanaa countable noun uncountable noun is a noun that can't be counted
kana waxa weeyaan waa wixii aan la tirin karayn cannot be counted haddii aan magaca kow laba la odhan karin waxaan odhanaynaa waa uncountable noun imika arday waxaan isla fahnay afartan eri waxaa loo yaqaanaa adjective of quantity amount xaddi bay tilmaamaan waxaana la dhigaa before a noun afartan eri waa inaad magaca ka horreysiiso magaca laba nooc baynu qaybinay mid waxaa la idhahdaa countable noun midna waxaa la idhahdaa uncountable noun countable nounku waa wixii la tirin karay haddii magaca kow laba la odhan karayo waxaan leenahay waa countable noun uncountable nounkuna waa magaca aan la tirin karaynin cannot be counted tusaale imka xagga xoreynaa books friends wixii la tirin karaya waa countable noun uncountable nounkuna wixii aan la tirin karin sida water biyaha oil saliida and so on iyo wixii la mida okay haddaba bal afartan erey af Soomaali ahaan a few waa yar fewna waa yar a little waa yar little waa yar dhammaantoodna magac baa la raacinayaa magaciina labaynu qaybinay oo waxaynu bixinay countable noun iyo uncountable noun countable nounku waa magac la tirin karayo uncountable-kuna waa magac aan la tirin karin haddaba labadan erey waa labada erey u horeeya ee ahaa a few iyo few waxaynu raacinaynaa countable noun haddii magaca la tirin karo oo magaca kow laba la odhan karo waxaynu raacinaynaa a few iyo few a little iyo little baa soo haray iyagana waxaynu raacinaynaa uncountable noun magac aan la tirin karin haddii uu noqdo waxa aad haysato waxa aad raacin doontaa a little iyo little tusaale imka waxaan odhanayaa waxoogaa yaroo cambaa baan haystaa cambaha waa la tirin karaa ma isticmaalayno a little mango iyo little mangoes midna laakiin waxaan isticmaalaynaa a few mangoes iyo few mangoes imka maxaad iga haysaa waxaan idinku udhi a few iyo few waxaa la raaciyaa magacyada la tirin karay a little iyo little waxaa la raaciyaa magacyada aan la tirin karin magaca la tirin karaa can be counted waa wixii kow laba saddex la odhan karaya ee jamcna noqonay uncountable nounkuna wixii aan la tirin karin ee aan jamcna noqonin ama s aan qaadanayn iyo es iyo ies iyo kuwa haddaba waxaynu sii kala qaadaynaa a few iyo few maxay ku kala duwan yihiin a few waxaa loo isticmaalaa oo iyadu adeegsanaynaa positive meaning ayaa loo isticmaalayaa waa wax yar laakiin kugu filan halkaa bal la dhageysta waxaan idinku udhi a few waxaynu isticmaalaynaa waa wax yar oo kugu filan halka few aynu isticmaalayna negative meaning waxaan jiraa waa wax yar oo aan kugu filayn waa not enough for you bal labada aynu sii yara jilcino waxaan ka bilaabaynaa a few af Soomaaliyan waa yar waa markay eeda wadato waxaynu ku turjumaynaa ama aynu macnaynaynaa oo ay noqonaysaa waa maxaa la dhahaa suggest say small wax yar bay soo jeedinaysaa eegtan waxay leenahay suggestis a small inay wax yar tahay ayay tilmaamaysaa sidoo doono waxaasi ha u yaraado ilaahu ma noqdo waxa weeyaan tusaalaan oo kale adu waa more than one wixii mid ka badan ayaynu odhanaynaa waa small ereyga few baynu isticmaalaynaa haddaan halkaa qodob kale ku daro waxaan leenahay waa adequate number intuu doonaha leekaaday waxaas uu ku filay maxaad ku ri markay leenahay positive waxaan jeednaa waa adequate waxa la yiraahdaa adequate number intaasi xasuusnaada waxa loo isticmaalayaa adequate number waa wax kugu filan positive meaning markay leenahay waxaan jeednaa wuxuu sidoo doonaa u yaraaday uu kugu filay tusaale imka waxaan odhanayaa I have imka bal xabada ileega I have a few idea I have a few options halka ileega I have a few idea or options for the project imka maxaan nidhi I have a few options for the project halkan waxa inoo qoran options
optionada waa la tirin karaa maadaama la tirin karo a few baan raaciyay optionada aad haysato waa adequate waa wax kugu filan waana positive meaning markay saata waaye haddii aynu taas si fiican iskula fahnay haddaan mid kale ku daro waxaan odhanayaa I have a few friends coming over a few friends haddaan idhaha macnaheedu waxa weeyaan saaxiibadaas way kugu filayeen waa more than one baad ujeedaa bal eeg tusaale labaadaan ka dhigna kaana waxaan odhanaynaa I have a few friends I have a few friends imika halkaa maxaan qornay a few friends macnaheedu waa maxayna waa more than one friend waxaad leedahay hal saaxiib wax ka badan waana enough for you saaxiibadaasi way kugu filayiin bay ka dhigantahay macnaheedu marka ta negative-ka aynu nimaadno waxaan ku ri few waxa loo isticmaalayaa negative meaning waa wax yar oo aan kugu filayn marka leenay aan kugu filayn waxaan jeednaa horta waxa weeyaan indicates small wax yar bay noo tilmaamaysaa tan ma aragtaan waxaan leenahay indicates waxayna tustaa small wax yar ayay noo tilmaamaysaa waxa yar ay noo tilmaamaysaana waa insufficient number inaguma filna waxaan leenahay waa insufficient number waxweeyaan insufficient number toora maxay nidhi waa adequate number way kugu filanta tanna maxay nidhi few waa negative waxaan jeednaa waa wax yar laakiin aan kugu fillayn marka labadaas aynu kala garanaynaa a few waxaa siduu doonaha u yaraadee macnaheedu waxa weeyaan a small number but more than one waa wax yar laakiin mid ka badan oo kugu filan markaynu few isticmaalayna waxaan leenahay iyaduna waa such as this a small wax yar bay soo jeedinaysaa laakiin de waa insufficient ama inadequate waxaas kuma fille aad buu yaray baa loo jeedaa tusaale balan soo qaadan waxaan oranayaa tusaalahan oo kale there are few people but there are waxaan leenahay there are few people dad aad u yar ayaa yimid ereygan isticmaalay bal dadka ku fiirsada few people baan isticmaalay waxaan leenahay there are few people at the concerts waka dad aad u yar ayaa yimid xafladii macnaheedu hadaba imika maxaa loo jeedaa waxaa loo jeedaa few people markay leenahay wax weeyaan dadkani waa dad aad u yar waa small number waa very small waliba aad bay u yar yihiin enough maaha okay waxaynu imika u gelaynaa labada u dambeeya oo noqonaya little iyo a little ayaynu gelaynaa in isla yareegaynaa waxa weeyaan a little iyo little iyaguna labadana labadii hore la mid laakiin waxay kaga duwanaanayaan de magaca la raacinayo little iyo little magaca raacinana wuxuu noqonayaa uncountable noun halka kuwan uu ka ahaa countable noun tan hore aynu soo qaadano markaynu leenahay a little iyadu waa positive meaning waxaan uu yariyay laakiin uu kugu filan yahay little waa negative meaning waa wax yar oo aan kugu filayn sidaas bay noo kala noqonayaan bal haddaba ereyga a little oo keliya aynu soo qaadano waxaan soo qaadanaynaa ereyga a little imika maxaynu isla yara fahnay ama markii dhowdaynu ka sheekeynay a little indicates a small amount waxayna baraysaa tani wax yar waxaa la dhahdaa indicates waxayna tustaa indicates a small wax yar bay noo tilmaamayaan weliba waxay noo tilmaamayaa a small amount wuxuu noqonayaa xad yar a little waa wax yar laakiin waa enough for you siduu doonaa u yaraaday uu kugu filayay bay ka dhigantay hadduu wuxuu kugu filayayna waxaynu isticmaalaynaa a little tusaalan soo qabanayna waxaan odhanayaa tusaalan oo kale I have a little time to help you imka haddaan qaabka u hadla ka waran aan idhaahdo I have a little time to help you waxaan leeyahay I have a little time to help you I have a little time to help you halkaa waxaynu ku qornay a little ayaynu isticmaalnay ereyga a little waxaanu isticmaalnay kow time waa uncountable now number laba senteniskan wuxuu tilmaamayaa
waqtiga aan haystaa waa sufficient for me wuu igu filan waqti igu filan weeyaan waaye waxaynu gelaynaa haddaba imikana soo qaadanaynaa waa little Soomaaliyan waa yar laakiin isticmaalka ayay kaga duwanaanaysaa few iyaduna waxay noqonaysaa implies a small amount wax yar bay tilmaamaysaa ama inoo sheegaysaa waxaa la dhahdaa implies waayahay small amount waxay tilmaamaysaa ama ay sheegaysaa wax yar waxa yarna muxuu noqonayaa waa insufficient wuxuu noqonayaa waxaan kugu filayn insufficient weeyaan waxay noqonaysaa insufficient waxaan kugu filayn marka leenay kugu filayn waxaan leenay tusaalahan I have little time haddaan time-ka isticmaalo macnaheedu waxa weeyaan waqtigaasi totally kuma filan aad buu yari bay ka dhigantahay haye bal imika mid baan qorayaa tusaale waxaan odhanayaa there is little hope of success rajo yar baan ka qabaa inaan guulaysto waxaan odhanayaa there is little hope rajo aad u yar baa laga qabaa little hope macnaheedu waxa weeyaan rajadani kuma fila aad qabtaa marka waxaan leenahay there is little hope of success guusha rajo aad u yar baa laga qabaa tan haddaan macnaheedu sii turjano waxay noqonaysaa rajada aad qabtaa waa mid aad u yar kuguma fila okay hal mar haddaynu si yaroo kooban iskugu soo xidhnay casharkeena ujeeddadii aynu lahayn iyo hadafkii aynu lahayn wuxuu ahaa dhammaadka casharka arday kasta inuu awood u yeesho ama uu aqoonsado waxa loo isticmaalo a few iyo a little iyo little a few iyo few waxaan raacinaynaa countable noun magac la tirin karay a little iyo little waxaan raacinaynaa uncountable noun magacaan la tirin karin a few waxaynu isticmaalaynaa wax yar oo kugu filan fewna waxaynu isticmaalaynaa wax yar oo aan kugu filayn mid waa adequate number midna waa inadequate mid way kugu filan tahay sidoo doonaha u yaraade laakiin waa more than one few laakiin iyadu waa inadequate waa kuguma filan waxaas waana very small aad buu yaryahay a little iyo little waa la mid a little waa enough waxa sidoo doonaha u yaraade waa often sufficient halka little ay ka noqonayso very small wax aad u yar often waa inadequate amount waa waxaan kugu filayn oo aad u yar bay noqonaysaa hadhowna markaynu isticmaalna saasaynu kala eegayna haddaba haddii isbarbardhig meesha yimaado ereyga few waxaynu comparisonka ama isbarbardhigga u isticmaali doonaa markaynu doonayno inaynu ereyga few comparative u isticmaalno wuxuu noqonayaa ereygani fewer ereygaasaynu isticmaalayna haddaba fewer maxaynu isticmaali doonaa waa for comparing two groups haddii waxaad isbarbardhigaysaa ay laba kooxood noqdaan few ha isticmaalina fewer isticmaal halkaa maxaan idinku idhi waxaa loo isticmaalayaa for comparing two groups intaa iyo xasuusnaada waxaan odhanaynaa for comparing two groups khayr hela ardaya haddii waxa la isbarbardhigayaa ay laba noqdaan oo magaca la isticmaalayaana uu countable noo yahay few ma isticmaalayna waxaan isticmaalaynaa fewer tanna ku garta jumladda haddii ereyga dan uu ku jiro few ma isticmaalayno ee waxaan isticmaalaynaa fewer waayo mid kale aan ku daro ereygan little isaguna wuxuu noqonayaa less ayaynu isticmaalanaa ereyga less ereyga less haddaba isna maxaynu isticmaalanaa isna sidiis leeg waa for comparing two amounts waa laba waxoo la isbarbardhigayo waxaan idhi waa for comparing waxaan isticmaalanaa marka la isbarbardhigayo two amounts ayaynu isticmaalaynaa iyadana ereyga dan ayaynu adeegsanaynaa laakiin de maxaad ku kala garani kan de waxaynu raacinaynaa uncountable noun magaca loo adeegsanaya waa inuu noqdaa midaan la tirin karin fewerna waxaynu raacinaynaa countable noun magac la tirin karaya ayaynu raacinaynaa haddaynu imika isla fahnay
waxay isku dayeen inaynu ka shaqeyno imtixaanka bal waa kan haddaba imtixaankii